soo dhawaada saaxiibadani YouTube haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka noo saar subscribe. ugu horeynba waxaanu arkaynaa in filimkeena uu ku bilowday baabuur soo galaya baarkiin waxaana ka soo degaya naag silma filaana waxa ugu soo dhacaya fariin qoraaleed. intaas ka bacdi baabuurkii ay ka soo degtay waxa ay ku dhajinaysaa GPS goobtana way ka tegaysaa. sidoo kale waxaa layna barayaa wiil lagu magacaabo Kenny waa wiil ka shaqeeya makhaayad. galabkiina waxa uu aada xaafadooda si uu u seexdo. meherada inta uu ka shaqeynayo waa wiilka ugu firfircoon ilaa ay ka heleen shaqaalayaashii ay isku meesha ay ka wada shaqeyn jireen. waxaana uu macasalaamiyay gabar yar oo u keenay bombala yar. Kenny waxa uu dib ugu laabtay galabkaas xaafadiisa. markii uu xaafadiisa dib ugu laabtay waxa uu arkay walaashi oo isticmaalaysa laabtoonka waxaanay ka raadinaysaa shaqo si ay uga shaqeyso, balse Kenny qolkiisa ayuu hoosta ka soo xirtay waxaana uu isku dayay inuu laabtoonkiisa uu wax ka kelin gareeyo. intaas ka bacdi muddo ayay ku qaadatay inuu laabtoonkiisa uu kelin gareeyo. Kenny wuu ka soo baxay qolkiisa waxaana uu dib ugu soo laabtay laabtoonkiisa si uu u isticmaalo. markan waxa uu raadinayaa shaqo ka fiican shaqada uu ka shaqeeyo. Kenny sidoo kale waxa uu arkay website-kaas oo ah website laga dalbado shaqooyinka, balse shaqooyinkaas lacagtoodu aad ayay u kala duwan tahay dhanka lacagta marka loo eego. Kenny arintan waxa uu qabaa xiise gaar ah, balse message ayaa u soo dhacay. message-kaas oo ahaa location-ka. Kenny arinta waa uu la yaabay, balse waxay la noqotay la yaab halka walaashiisna uu u sheegay arinta ku soo korortay asaga. sidoo kale Kenny markan aad ayuu u naxsan yahay waayo waxa uu rabaa in shaqada uu hadda uu ka shaqeeyo uu ku bedesho shaqo ka fiican. Kenny sidoo kale waa maalmihii ugu dambeysay ee uu ka shaqeynayo makhaayaddan uu ka shaqeeyo kabalyeeriga. waxaa loo soo diray location, sidoo kale waxaa loo soo diray fariimo qoraaleed. waxaana uu intaas ka bacdi uu ka xistay baaskiilkiisa asagoo ku aadaya location-ka meesha loo soo diray, balse Kenny isla markiiba waxa uu yimi nin wata mooto waxaana uu dhiibay kartoon. sidoo kale waxa uu ka qaaday sawir, balse Kenny uu la yaabay arintan loo dhiibay waxaana lagu dhahay ha furin ilaa aad geysid location-ka loogu talagalay alaabtan. Kenny intaas ka bacdi waxa uu bilaabay inuu baaskiilkiisa uu ku kaxeeyo, balse sidoo kale baaskiilkii uu ka degay oo waxa uu raacay bas. markii uu baska uu ka soo degay waxa uu yimi location-kii guriga ee alaabta loo waday, balse muddo albaabka lagama furin. sidoo kale waxa uu u qoray fariin qoraaleed oo ah inuu joogo guriga. sidoo kale waxa ka furay nin lagu magacaabo Hector waxaana uu u sheegay inuusan ahayn qofkan loo wado alaabta uu yahay qof kale, balse markii dambe waxa uu taleefankiisa uu ka tusay in uusan ahayn qofka leh alaabtan, balse ugu dambeyn way cadaatay qofkii alaabta lahaa waxaana uu noqday Hector. wayna isa soo wada raaceen ayagoo soo raacaya baabuurkii ay naagtu ay ku dhijisay GPS-ka, balse xaaladan ay labadan ay ku sugan yihiin waxa aad ula socota naagtii GPS-ka ku dhijinaysay baabuurka. waxaanay magaalada ay ka baxeen Kenny iyo Hector, balse Kenny wuu la yaaban yahay maadaama uu wado alaabtii loo soo dhiibay location-kiina uusan ahayn halkan. sidoo kale Hector ayaa u sheegay hadallo qalafsan Kenny-na waa u qaadan waayay ilaa uu ka argagaxay waxa uu u sheegayo. intaas ka bacdi Kenny waxa uu isku dayay inuu ooyo. sidoo kale Hector waa mid ka damacsan inuu Kenny u qabto arrimo asaga khaas u ah, waxaana uu u sheegay in uu gacanta u geliyo alaabta uu wado, balse waxa kaga soo baxday muraayad, koofiyad iyo baskoolad. waxaana uu u sheegay waa maxay waxaan aad ii sheegaysid ee meesha ka soo baxay. waxaana uu ku yidhi waa alaab aad hadda ku shaqo galaysid. Kenny aad ayuu ula yaabay markii uu arkay baskooladan, koofiyadan iyo muraayadaba. waxaana ay soo hor istaageen bangi, balse arintu waxa ay isku bedeshay Kenny markii la yiri waxaad gelaysaa bangiga kan lacagna waad ka soo qaadaysaa adigoo ukiyaalahan wata, koofiyadan xiran, baskooladana gacanta ku wata. Kenny wuxuu khasab ugu geliyay koofiyada. sidoo kale waxa uu ku yiri waa inaad gashaa bangiga oo aad lacag aad ka soo qaadataa kuna qabataa qofka jooga baskoolada.
Kenny intaas ka bacdi waxa uu bilaabay inuu isku sii daayo kaadi, balse naagtii joogtay bangiga waxa ay siisay xoogaa lacag ah. Kenny-na waxa uu dib ugu soo laabtay Hector, halkaasna waxa iska wada raacay mar labaad Hector iyo Kenny balse markan xaaladiisa ma fiicna maadaama ay naftiisu ay gashay halis, waxaana ay yimaadeen meel bannaan ah. Intaas ka bacdi Kenny waxa loo soo diray fariimo, balse Hector ayaa u sheegay in uu ku dejinayo meesha tan ayna tahay meeshii ahayd locationkii uu rabay. Sidoo kale waxaa lana barayaa nin taagan meesha uu joogo Kenny. Ninkaas waxa uu kartoonka uu kala soo baxay droniskaas uu tijaabinayay, balse Kenny ayaa arkay waxaana uu la yaabay droonkan uu ninkan u kicinayo. Kenny iyo ninkan waxaa dhex maray hadallo kulul. Kenny-na waxa uu damacsan yahay inuu sameeyo arrin asaga u gaar ah, balse fariin qoraaleed ayaa sidoo kale u soo dhacdhacaysay. Kenny ugu dambeynna waxa uu la soo baxay baaskooladiisii, balse asagaaba damcay inuu isku dhufto. Intaas ka bacdi waxa Kenny baaskoolada ka badbaadiyay ninkii uu ugu yimi keynta. Sidoo kale Hector waxa uu u yimaadaa xaaskiisa oo isticmaalaysa laabtoon, balse xaaskiisu waa qofka kaliya ee Kenny u diraysay mar walba maaseejyada. sidoo kale waxay u dirtay emoji qosol ah. intaas ka bacdi gabadhan waxa soo qaatay wargeyska waxaana lagu soo qoray joornaalada. Kenny ilaa fiidkii waxa uu wareegayay keynta asaga oo ay xaaladdu ay ku adkaatay, balse lama filaan waxa uu u arkay sawirkii emojiga ahaa ay naagtu u soo dirtay. hooyadii ayaa soo wacday, sidoo kale waxa uu sheegay xaaladda uu ku sugan yahay, balse Kenny waxa uu soo xasuustay markii uu meherada uu ka shaqaynayay una caawinayay gabadha yar ee uu siinayay boonbalaha. waa uu ka qoomameeyay sababta uu uga soo tagay shaqadiisii fiicnayd. intaas ka bacdi goobtan waxa timi boolis, halkaasna waxa laga kaxeeyay Kenny uu sanka iyo wajigaba dhiig uu kaga yaalo. waa inoo muuqaal kale muuqaalka xiga saaxiibadeena YouTube.